deegaanada Oodhigle iyo Janaale oo ka wada tirsan gobolka Shabeellaha Hoose xalay waxa ka dhacay duqeyn diyaaradeed dadka deegaanka ayaa Shabeelle u xaqiijiyay in ilaa 7 gantaal lagu dhuftay deegaanka Oodhigle kaasoo dhaliyay qasaarooyin kala duwan gantaalada qaar waxay sheegeen dadka deegaankiina ku dhaceen guryo ay deganaayeen dad shacab deegaanka Janaale isna waxa ka dhacday duqeyn diyaaradeed waxaana wararku intaas ay ku darayaan inay jiraan dagaal fool ah kaasoo u dhaxeeyay ciidamo ka soo daatay diyaaradaha dagaal iyo dagaalyahana ka tirsan xarakada al-shabaab dadka deegaanka saaka waxay sheegeen in xalay saqdii dhexe ay ka wada baxeen guryo ay ka deganaayeen deegaanadaasi ma jirto ilaa hadda wax warar ka soo baxay dagaalyahanada xarakada al-shabaab ku aadan duqeyntii diyaaradeed ee xalay ka dhacday deegaanada Oodhigle iyo Janaale oo ku sugan yihiin dagaalyahana ka tirsan xarakada al-shabaab waxaana xarakada al-shabaab la sheegay in dagaal fool ay la galeen ciidamada gaarka ah ee xalay ka soo daatay diyaaradihii waxaana intaas ay lagu darayaa in dadka deegaanka gabi ahaanba xalay ay faarujiyeen deegaanada Oodhigle iyo Janaale oo ka wada tirsan gobolka Shabeellaha Hoose